waxaa la oranayaa sanadku wuxuu ka kooban yahay 360 maalmood mise 360 maanta. arrintaas ayaan ka hadlaynaa maanta. soo dhawaada. soo dhawaada jimco wanaagsan. maanta bishu waa 21 December. dabcan sanadku waxa ka dhiman dhowr maalmood. xilligan oo kale waxa caana in dadku ay ballanqaadyo badan sameystaan, sida waxaan akhrin doonaa juz maalintii quraana, buugaag badan baan akhrisan doonaa, buug uu qori doono, lacag meel dhigan doono, inuu qof sadaqa badan noqon doono, inuu qof balwad hadduu leeyahay balwad iska daaya noqon doono. way badan yihiin ballanqaadyadu iyo waana kala duwan yihiin. dhibku ma aha in qofku uu ballanqaad sameysto, waa wax loo baahan yahay, waana hamiga qofka bini'aadan ku jiro. markasta uu ballanqaadyada sameynaya waxay ka turjumayaan qofka inta wanaaga ah wanaaga uu jecel yahay ayay ka turjumayaan, waana wax wanaagsan. laakiinse dhibku waxa weeye ballanqaadku ma fula mise ma fulo. aniga haddaan iska soo qaado runtii inta badan iima fulaan. waxaan damcay inaan isku dayo inaan helo qaab aan ballanqaadyadaydii ku fuliyo. markaan wax baarbaaray waxaan ogaaday qofku waxa uu jecel yahay inuu fuliyo ama waxa uu doonayo hamigiisa ah inuu gaaro waa inuu ka dhigtaa caado. waxaas waa inuu noqotaa caado. hadduu doonayo qofku inuu iska rido culays jirkiisa saaran oo caafimaad u helo, waa inuu caado ka dhigtaa inuu tago jimka ama u bilaabo inuu ordo ama wax sameeya dhaqdhaqaaqa. marka qofka hadduusan caado ka dhigan way ku adkaanaysaa inuu waxaas wado. laga yaabaa xiisuhu inuu yahay muddo gaaban oo dhowr wiiga, laakiinse sidee waxaan qofku caado uga dhigan karaa, uu u gashan karaa jadwalkiisa maalmeed. culimmadan wax baarta ama cilmi baarista ku dheer ayaa waxay yiraahdeen qofku wuxuu caado wax ka dhigan karaa markuu daa'imo muddo dhan 6 wiig. sidoo kale waxaa taqaanaan ama aanu gabigeena naqaanaa dad muslimiin maadaama jamaacada la yiraahdo tabliiqu waxay baxaan 40 casho. tabliiqu runtii 40 casho waxay ka turjumaysaa qofka in isbedel ku dhici karo. hadduu aha qofku qof ku adag salaadaha inuu tukado, in hadduu uu la socdo 40 maalmood in ay u sahlanaanayso 40 kadib oo waxaasi oo caado u noqonayso. runtii waa fikir aad u fiican. qofkii keenay ma garanayo, laakiin dabcan wuxuu ahaa qof ka fikiray 6 wiig ee tahay muddadu uu u baahan yahay qofkaas waxa caado ka dhigan karo. waxaa kaloo jiro waxaan ku bilaabnay barnaamijka inaan iraahno sanadku muxuu ka kooban yahay 360 maalmood mise 360 maanta. runtii waxaan u iri maanta waxa weeye qofku wuxuu nool yahay maanta. shalay waxay kugu soo martay maanta oo way ku dhaaftay, dib uma soo noqonayso. berina ma noolid oo waxay kugu soo maraysaa maanta. haddii aad waxyaabaha aad jeceshahay doonaysid inaad guul ka gaartid waa inaad gelisaa jadwalkaaga maanta, ilaa waxaad nooshahay maanta oo keliyata. yacni berina maanta kugu soo maraysaa, shalayna maanta kugu soo martay. laakiin qofku inuu hami lahaado oo ilaa 5 sano 6 sano uu dejisto qorshe ama uu dejisto hadaf way fiican tahay, laakiin waa inuu ku darsadaa qorshihiisa hadafkaas uu gaari lahaa 5 sano inuu maanta ku darsado. sida awgeed qofka hadduu wax caadaysanayo waa inuu ka dhigtaa wax jadwalkiisa maalmeed ku jira. intaa yar waa in yar aan anigu ila noqotay ama aan isleeyahay waa lagu gaari karaa hadafka qofka, ama hadafka qofka ayuu ku gaari karaa. haddii aad haysid wax ka duwan dabcan waxaan ka filaynaa inaad nala wadaagtid. sidaas oo kale waxaan leeyahay ilaahay nooga dhiga sanadkan sanad cusub oo wanaagsan oo khayr wata. waxaynu is arki doonaa insha Allah sanadka cusub. sida iyo nabadgelyo. waa mahadsantihiin. like